السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كسود ما يوتيوب بيتنا halkan waxaa la fadhiyay saaxiibkeen Liban xawaa taageer Liverpool waa xalay guul daradii Liverpool ku dhacday ilaa hadda macna xalay muus saxan labeen muus sigin taas waxa ugu sii daran United ma 3 ibro ku badisay kooxdiisa Liverpool waxa waaye hal ibra looga badiyay marka wuxuu leeyahay macalinka cusubnii waaba ka shaqeysanayo haduu ka badi waayo kooxdaas yarta haduu ka badi waayo maxaa kooxaha kale oo waaweyn say noqon doontaa marka ayaan horetay waxaan ugu gadan anagoo dhaawac nooga maqan yihiin ciyaartoy far badan ciyaartoyda soo gadan dhan macnaha aysan aalamita macnaha aysan sameeyno wali aysan diyaar ahayn oo Ten Hag ciyaartoydii fiicnadna dhaawac ugu maqan yihiin kuwa oo soo gatayna wali aysan diyaar ahayn ay ka faa'iideysteen guusha marka waxay isdhahay ninka macalinka oo macallin u fadhiso ninkan waa xawaa sanadkan asaa Premier League qaadi doono kulinka afraad waa kana waa dhiibtay jaamacada waliba koox yar u dhiibtay kooxaha weyn Arsenal iyo top 5 ka hadee ka hor imaadaan nimankan shan ka yar macunayaan marka Liban kusoo dhaw maxaa leedahay guul darada shalay ku dhacday horta waa salaamay bahda Sheekh Umar oo YouTube Sheekh Umar shalay waxa waa mataqaanaa way nagu dhacday horta ana waxaa taageera Liverpool nima taqaanida taa lamida Ma United waa la yaqaana Liverpool waa la yaqaana waxa ana hal maalin loo lumay waxa mataqaanaa wax weyn igama dhigno horyal oo tartami karaa laakiin cid aad tartami kari waxa Real United radidaal dhacdaas nin YouTuber oo u sheegay aniga shalay horta way ku dhacday macalinkaana qaladkii iga sameeyay ayadoo ciyaarta ka daqiiqo marayso Diaz iyo McAllister iyo Jota uu bixiyay ma fahanti marka ani hal ciyaaro mataqaanaa wax walba waxa iga darnaa in laakiin la iga soo badiyo Anfield si xun waa ka xanuusta wallahi Anfield la iga soo badiyo marka qorneo Anfield wuxuu garoomada kala dhaamar waxaas bay hore dadka ku gaadi jirteen Anfield la meeshan cid soo gashay waa dubanayna waxaas bay hore gaay hadda ama Anfield joog ama garoon yar oo Luton ay leedahay joog waa lagu soo dubanaa fahad Anfield waa la yaqaananiyo mataqaanaa Ma United Anfield ay tagtay dhacmo ku soo qaadatay inay mataqaanaa bareedarow nala soo gasho moogi laakiin Ma United home iyo away labadaba hadda ugu tago waxa mataqaanaa mar walba guusha dhankayga jirtaa been ma ku sheegay wala ya very meeshaan laba koox hadii dheelaan waa la kala badalay laakiin muhiimadu waxa waaye seasonka in natiijo laga keeno sax seasonka dhan adiga oo sanadka hore tartamayeen oo FA Cup u tartamayeen oo Community Shield u tartamayeen oo Premier League u tartamayeen wixii dhan hal wax waa ka qaadi weysay fahad marka Liverpool sanadkan aniga meesha aan ku qiyaasayo waxa waaye haday dadaasho top 4 inay soo galayso wax kale u hayo koob yarna uma hayo Premier League-na uma hayo wax kale ma macalinka waxba ka baqabo hadda san jaa kulanka afraad waa la fahmay kooxo yar marka hadii kooxo waaweyn idin kor imaadaan waxa ilaahay idin maqan marka ninkan inuu fashilmi doono oo sanadka hadda la soo dhaafay sanadka ka horeeyay amal Europa League iyo meelahaas ku dhameeyay doontiina u baahan tahay horta niyow tabara waan ugu cusub yahay waan ogeey waxa naga tagay tabariga mataqaanaa cabsida oo Anfield looga cabsi jiray waa naga tagay waxa mataqaanaa marka hadii meel sare agar nin meel sare gaarsiin doon wajigiisa uu leeyahay sababtoo ah saddexda ciyaar ugu horeysay mataqaanaa oo Ma United ka mid ah dhagaa soo dhahnay waxaan mataqaanaa ku burinayay taa waa mataqaanaa kabi cadaan waay hal kun laga badiyay hal gool oo daciif xataa oo yaa la leega badiyay wax walba sameey gool waay mataqaanaa shalay way marka waxa la yaabana adig ilaa fashilmaysin sanadkan waxa cadeynaa sanadkan ciyaartoy soo ma gadan ciyaartoydiina waa weyn dhan waa duqoobeen Salah 30 jiro noqday Van Dijk 30 jiro noqday ayaga dhan ma jeedo 30 jiro hadda kuwan xitaa waxa ay shaq labadan kale oo difaac oo la dhashay Van Dijk ayaga xitaa 30 jiro noqday ninkan wuxuu noqday Portugal noocan noqday Bruno la isaga shuudaba inuu gool noqdo ayaga hore u fiicnaa laakiin hadda ibr noqday marka sanadkan maxaa rajeynaya sanadkan Liverpool maxaa ka rajeynaya sanadkan Liverpool cabsi waa la yaqaan Liverpool meesha ka jirto kooxa ka jirto Ma United amal ma yani waxa mataqaanaa hal maalin badane magaalada qabsanay aan laakiin halka maalin mataqaanaa guush bilaabo waa wada aan laakiin sida Ma United koranta maalin ma dhumay maalin mataqaanaa ma badinay ani guushaydu waa isdaba socod ma fiiri Bruno siisa cadi madow alban sax maalin waa ka tala maalin laakiin aniga muhiimadeedu waxa waa sanadka hadda la soo dhaafay kooba qaaday ka sii horeeyay kooba qaaday adiga sanadkan maxaa isleedahay waa qaadi kartaa Liverpool alaas ka joog ani sanadkan koob badan oo tartamo inta koob ciyaar sanadkan koob oo tartamay malaani
laakiin hadda ma ku dhigi karo koobkaasaa qaadaa laakiin wax walba hadda bilow waaye waqtiga mataqaanaa ciyaaraha ay tagaan mataqaanaa wareega saddexaad ama wareega afraad kale taa walba limi saari karaa markaan marka dambaysa inaan ka hadlaa jeclaa okay su'aala ku diina Premier League xagga iska dhig rajo ma laha inay qaadeen waa aragtay Arsenal iyo City oo ka dhexeeya mafad aadiya oo hadda sanadka hadda la soo dhaafay Premier League u tirtamaysa anaa ka lugteeda kaaga reeb United kugu dhagtay saas u qaartay Premier League sax FA Cup waa laga yaabaa FA Cup inay qaadid laakiin United iyo waxa kula joogta 2 sano isku xigta final imaatay iyo City oo 2 sano isku xigta final imaatay aad joogaan wali mafad Chelsea naftirkeeda soo noolaanaysa Arsenal waa joogtaa shaki kaaga jiro community shaliga yiriska darad qaaday karnaka maalla darad qaaday asiga naftirkiisa ku caawa kula jooga Champions League rajamalido miisaanka culus dad weyn meesha jooga hada marka sanadkan aniga wax aan ku haay malaha sanadkan aniga qiyaasa Premier League kooxaha Premier League waxa waa Premier League waxa iskala City sanadkan FA Cup waxa iskala Man United karnaka waxa iskala community shield waxa iskala Arsenal حسنا سنتين قبل عام بحثه عقوصه على Champions League dhinacaas ku caas kale taa qaadanayaan Europa League United askale marka aan Liverpool sanadka xumuha inuu Champions League loo soo baxo top 4 raadsada intaas daaga shay nabada aan Liverpool taageera laakiin Liverpool koox lagu tashakar waarto Man United koox lagu tashakar fataayo xaluu shoo ani laba sano isku xigta koob qaade hadda ciyaartoy fiican soo gatay ma taqaanaa ciyaartoy ma taqaanaa Holland laga soo aruurina oo hal mataqaanaa in ajax 10 xabal laga keenay Hollandees loo raasamiyo asxaabta hore dad bash waa la bedelay fanistor champion tartan u ahay ina qaado iga suurtagal Premier League mataqaanaa tartan u ahay FA Cup tartan u ahay Liga Cup tartan u ahay wax aan sanadka koob la horta ma baxay waxay noqotay laakiin aan waxyaaba ugu weyn mataqaanaa aan mataqaanaa kooxdii ula jeclaa inay qaadab aba kaam weyn Premier League sanadka cidaan ay qaaday saddex u dhahaan ورنا بريمير ليج ليفربول وقرت التيم كده بدل في عن ما هيسطو بنجي ما هيسطو عشان بريمير ليج ارسنال iyo City ku hardamayo rajama ma kala diin gaase top 4 ka aan balana United iyo Liverpool sanadkan top 4 ka ninka sareeya noo balana insha Allah ani waxa aaminsanahay laba koox ay hormareen Arsenal iyo City ay hormareen Liverpool iyo City iska rabaa Arsenal iyo City waa iga koreynaa صح kaalin saddexaad in aan soo galay ani adiga noo dhaxaysa kaalin saddexaad waxa uu baa ina Premier League qaada adigana waa arki doonaa Sissoko markuu dhamaado khayr waa arki doonaa insha Allah kulankan xigta insha Allah video ku xiga idila wadaagi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh